بسم الله الرحمن الرحيم. سو دhowaad asxaabta qiimaha qadarinta mudan halkan waa jarka canshuur bixiyaha dulman. Okay, maxaan idin hayaa? Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble xilku ma hanaaneys wax cadalkan ka qaban karta malaha oo doorasho ah. Waxaan abalaja soo jeedinayaa nimanka reer waqooyi ee walaalaheena reer Soomaaliya ee Cabdi Xaashi iyo Boqor Buur Madow guuleysay runtaas sheegteen. dad badan oo activistiyaal oo youtuber ayaa idin naqdiyay waxaad aragteen inuu san Roble qaban karin doorashada annagana wadin marqaati kacayna guuleysta maantana waxa balajeeskaas u dhiibaya dadkayga sirna u haya dadka aan matalo canshuur bixiyaha dulmana oo reer Muqdisho siraan u haya intaan kala yartaameyshin hadda korna waa idin sheegay haddana waa idin sheegay meel kale oo idin kala heesta ma jiraan waa ummadda Soomaali weyn aadodka ku saar Soomaali kala tagtay qarnimo beena inta ku saar qarnimo kala tagne anaga heer waqooyi waxa kale oo nagula dhacaa calanka buluuga ee gada laga leeyahay calankaas buluuga iska diida waa calan gado waxaan rabaa ina asxaabtayda dhaliilo oo kow ay ka yihiin asxaabtaydan dhaliilayo waxay tahay ma waxaan aan taageeraynaa Maxamed Xuseen Roble ayaan taageernaa ii sheega ma taageernaa Maxamed Xuseen Roble maxaan ku taageernaa waa marka waxaan rabaa inaan laba kelmad ku soo koobo doorashadii boobka ahayd kuraasti la dhacay oon ogeyn wax ma ka qabay waa maya ciidanka siyaasadda ma ka dhex saari waa maya biixi oo dambiile oo in la toogto toogasho nin mudan ayaa siyaasadda ku dhex jiro asoo elaboorka ka soo dejiya beledweyne maxaa ka gala beledweyne biixi mawsiirka amniga mawsiirka arrimaha gudaha ma ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare caliyare ka awood badan yahay maxaa u sheegaysin golaha wasiirada wax shaqeeya ma leh caliyare iyo cumar finish iyo waxaa shaqeeya ninka la yiraahdo biixi oo qorlow dadkeena ku laayay heer waqooyi raal ahaada dadkeena dadkii laayay xukunka u dhiibanay markaas hadda si sharci daraan uga leestaa maanta maalin aan ahayn warkayga aad arki doontiin haddana waxaan ku soo gabagabeeyaa iska diida Soomaalinimada tuuganimada ah bahashane waxaan leeyahay waa in qadarka Ilaahay wuxuu adduunkan uumay shalay wixii dhacay inaad dhinac aragta aad ka istaagtaa laga rabaa shalay wixii dhacay inaad ka istaagtaa laga rabaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilka iska dhiib sababtoo ah wax aad ka qaban karto dalkan ma jiraan dadkan helugoy waxaa rabaa inaan ku soo koobo hadalkayga reer waqooyi noolaada walaalihiin ir Soomaalana waana la duuleystay qarannimo iyo Soomaalinimo beenhan gula duuleystaa dadkeena lagu dhibaateeyaa xoolaheena lagu dhacaa nugula dilaa ilaa haddana aan daba taaganay nooga danaasha inuu Ilaahay noogu duceeyo Soomaalinimada beena waxaan leeyahay noolaad kacdoonka shacabka Muqdisho canshuur bixiyaha dulman dalaal lagu banaan bixi karin Roble doorasho ma ka dhici karto Roble waa fiyowdahay nin fiyowna mahan ma ka bixi karo nin maan damir lahayn mahan ma ka bixi karo Roble istaqaalad geey xilku mahanaaneys Roble waraabayaashan ciyaal suuqyaasha oo dhaxda ka soo gashay waa inaad waraabo ciyaal suuq noqoto dawladnimo ma jirto caliyara wasiirkaaga amniga bahdile maantana aad caliyara ku haystaa iyo biix oo tuuga Roble dadnimo laga rabaa dadnimo Roble asil konton sano ayaan ku qaangaarnaa walaalaheen reer waqooyi maskax isku yeesho idinka 15 sano ku qaartay sidii bini aadanka aad ku qaangaartay 84 ogaateen ninkan Maxamed Siyaad Barra inuu yahay khaa'in inuu yahay oo qabiilista yahay oo dalka dictator yahay 15 sano ku qaangaartay cudur daara aan waxa ku qaangaaraa 55 sano kadib aan ogaaday calanka buluuga waxa diiday 30 sano ka hor hadnimadii iyo qarannimada baanta hay'ad dadkayga lagu dhaco aan diidayna cudur daara ولا له وحنا كرها الجريها
dadka activistiyaasha ah sida wax loogu turjumay oo Daahir Cali Sow kow ka yahay saaxiibkay Daahir Cali Sow waxaan ku leeyahay ma ogtahay in heer waqooyi guddigii heer waqooyi ninkaa la leeyahay maaragtay Mahdi Guuleed Qadar inuu geesta madaxtooyada Cabdi Xaashi gruubkiisa helfaha loo qaaday ma ogid miyaadi laba isbuucay qaylihaayeen heer waqooyi banaanbaxay diyaarsheen aaween farmaajo dhacuuhaay si farmaajo ugu shaqayhaayeen 4 sano duleystay anagoo dayna Cabdi Xaashi horteena ku jiido Cabdi Xaashi laakiin markii aad lagu duleysto ana waa la kor saarna ugu canshuurteeda lagu dhibaatay jidkii laga xirtay intaas ugu cudur daar warni waxaan ku gaangaarnaa heer waqooyi boqor buur madoobo iyo professorkayga aan jecel Cabdi Ismaaciil Samatarow waxaan ku gaangaarnaa reer koonfurku waxay ku qaangaareen 55 sano 60 sano ku qaangaarnaa bal ilaahay markiis fiir calan buluuga iyo qarnimo been ah iyo Soomaalnimo been hal nugula dhaca problem oo iska sax dib ba xooradiisa meesha aan joogna ka maqlaynaa Muqdisho والله اسك حوريها ما بقى إن بيح أو دلك هيستو أو رئيس الوزراء بيح كيه أو وزير أمن كيه على مجلس على الجيب كجر أو كيه يا ما بقى ما نكاسا وحقيقة بنا شركة وحكو صودا ما واشيك ولا ليه يا بنا وح لقى هلا ملهاني دور الشدي لا داعي لقى محلي وحال ربا كلي إن وحال لقى هلا إن بابك صعد بدلا ما بويس حقه ولاده سعيدان وحير وحالة ترتما يوري فرماج ورنتيس ما بانا فرماج صدق قبل أوصل لهين يبروقات تضيع تمن مدو مشتري أنت معاي ستين وحبنا أم بقيلش أم بس كداف نيكيد هم التلاين ورئيس الوزراء روب الأون أرك روب الأون أرك والله بالله تالله و مرة أنا قد عضي أنا جاي مرة أنا قد عضي وحمد الله توسع